waa hagaag daawadayaal markana warsi degdeg ah noo soo gaaray fanaanadii Xaliimo Gobaad oo muddo kooban ku soo jirtay fanka iyo suugaanta Soomaalida ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay gebi ahaanba iska hakisay fankii iyo heesihii ay qaadi jirtay muddo 6 sano ah ee la soo dhaafay. Xaliimo Gobaad oo barteeda sida rasmiga ay ugu leedahay social media ee tagta saaran ayaa waxa ay ku soo qortay hadal kooban ay sheegaysa inay gebi ahaanba joojisay fankii iyo heesihii iyadoo ku bilowday qoraalkeeda kooban. Bismillaah, anigoo ah Xaliimo Gobaad markaan arkay adduunkan in uu yahay maalmo, markaan xasuustay xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa haddii aad galabaysataan ha suginina in uu waqtiga waagu idin bariyo, haddii aad subaxaysataan ha suginina in aad galab gaaraysaan, waxaan go'aansaday in aan iska joojiyo fanka. Taageerayaashayda sharafta badan, waxaan idinka rajaynayaa in aad khayrka igu taageertaan. alla oo raalli ka noqdo ayaa muhiim ii ah alla oo raalli iga noqdo ayaa muhiim ii ah. Wabilaahi tawfiiq ayay ku soo gabagabaysay qoraalkeedaasi kooban fanaanadii Xaliimo Gobaad oo muddada kooban fanka ku soo jirtay oo xasuusataan in heeseedii ugu soo horeeyay ay soo qaaday sanadii 2016 haddana la marayo 2022. fanaanada Xaliimo Gobaad ayaa barihii ugu dambeeyay waxa ay gaabis ku samaysay guud ahaan fanka iyadoo viewskeedina hoos u yara dhacayay oo ay soo gabagabeysay fankeeda, heesaheediina ay gaabis ku samaysay. ugu dambeyntiina ay sheegtay in ay ka fariisatay fanka Soomaalida gabi ahaantiisa ayna iska joojisay. fanaaniin fara badan ayaa horay fanka u joojiyay oo ka mid yahay fanaankii weynaay ee Maxamed Saciid BK iyo fanaaniin kale oo aad u fara badan walow qaar fanka ka fariistayna ay dib ugu soo noqdeen. Xaliimo Gobaad haddii ay muuqaal ka soo duubaysay, haddii qoraalkaas ku soo gabagabayn doontaba dib ayaynu idin kala soo socodsiin doonaa. Somali Dream ayaadna kala socon doontaa. Sudada,